iskuulada ay dawladdu maamushay Somaliland ku yaala gaar ahaan kuwa hoose dhexe ayaa la sheegayaa in lacag ay ka qaadaan ardayda dhigata talaabadaasi oo ka soo horjeeda go'aan ay xukuumaddu hore ugu sheegtay in iskuulada dadweynuhu ay lacag la'aan yihiin talaabadan ayaa waxaa la sheegay inay saameyn ku yeelatay tayada heerka waxbarashada ee iskuuladaasi Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe Somaliland waxay sanadii u dambeeyay ahayd mid lacag la'aan ah kadib markii xukuumadii madaxweyne Siinaanya ay soo rogtay inay ka dhaaftay lacagtii ardayda laga qaadayay hase haatee sanadkii u dambeeyay waqti ku siman waalidiinta waxa mar kale la weydiiyay inay lacag bixiyaan inkastoo qadarka lacagta ah ee laga qaado ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe ee dawladda ay qoysaska qaarkood bixin karaan haddana waxa jira qoysas kale oo aan bixin karin oo ay ka mid tahay hooyadani aniga laba carruur ay dhigtaa lacagna oo laga qaada lacagta laga qaadana ardaygii baa 20 baa laga qaadaa waxbarashadeeduna ma xuma iskuulka ma awood karaan laakiin waan laga qaadaa walow ay badan yihiin qoysaska danyarta ee carruur badan u dhigtaan dugsiyada dawladda kuwaas oo sugeyn lacagta laga doonayo aan bixin karin haddana xukuumadda Somaliland waxay u aragtaa in marka la eego baahiyaha waxbarashada ee la rabo in la daboolo ay intani ka noqonayso waxyar sida uu VOA u sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iminka waxa laga qaadaa ma aha wax maxaato idana kuma khasabto wax bahalkiyana ma aha arday waliba xaq buu leeyahay iskuulka inuu yimaado waa un maxaato waxa laga yaabaa iskuulka nadaafadiisa rinjigiisa wax saasoo kale markii macallimiintu ku miisaaniyadu ku filaan weydo waa dhici kartaa waxyaalaha caynkaas inay ka qaadaan wax laakiin official dawladdu xaggeeda ka socda ma aha laakiin waa community-ga iyo macallimiinta iyo inta maamulka iyo ardada ku eeg arintan anaga wax cabasha haba yaraatee oo ka taagan oo ka jirta ma jirto dhinaca tayada waxbarashada dugsiyada dawladda ayaa hoos u dhac ku yimid taas oo xukuumaduna marar kala duwan ay sheegtay sababaha hoos u dhacan ayaa dadka qaarkood u sibir saaraan kuwa ku taxan dhaqaalaha macallinku qaato iyo sidoo kale kala kor ku yimi dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda kaas oo sababay in dugsiyada gaarka loo leeyahay ay hantaan macallimiin tiro badan oo qaarkood iskaga tagaan ama waqti ka yarkii loo baahnaa ay geliyaan dugsiyada dawladda dadweynaha qaarkood ayaa u arkay in loo baahan yahay xal sidan u dhigan magacaygu waa injineer Cabdullaahi Faarax Ismaan ari badane halkan aniga fikrad ahaan waxay la tahay xagga tayada tacliinta in si loo helo macallimiin heer sare ah oo kaafiya tacliinta in mushaharka loo kordhiyo macallimiinta hase haatee wasiirka waxbarashada ayaa VOA u sheegay inuu muuqato hoos u dhaca tayada waxbarashadu waxaanu xalkeeda ku tilmaamay in la tayeeyo waxbarashadii ayaa lagu talagalay oo baxaynto kor loo qaado dugsiyada qorshaha loo dejiyay tayeenta lagu sameeyana waxa weeye marka uu horeysa dawladdu waxay ku talagashay inay macallimiin u hesho iskuulada in badan oo macallimiinta iminka iskuulada jooga waa dad aan tababarayn dawladdu markaa waxay qorshaysay inay tababar macallimiinta geliso kuliyad macallimiinta lagu tababaro ayaa gacanta lagu hayaado dhowdhow oo laga shaqeynayaa sidii loogu tababari lahaa aad baa la rabaa manhaj baa loo dejiyay si macallimiintu muddo gaaban macallimiin badan oo dugsiyada ka dhigi kara oo tayo leh ay uga soo bixi lahaayeen dugsiyada private-ka ah ama gaarka ah ee macallimiintu tegayaan tayo badan oo ay dheer yihiin ma jirto xalalka la xidhiidha tayinta waxbarashada ayaa dadka qaarkood u arkaan inay qayb ka noqon karto samaynta iyo hirgelinta siyaasad jaangoysa waxbarashada sida uu qabo Maxamed Axmed Barwaani oo ah agaasimaha dalladda ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland education reform buu baahan yahay reformkaasi ka soo baxaysa siyaasadaha iyo xeerarka iyo procedureska ama hababka lagu haday waxbarashada Barkad Maxamuud Kaariye qubanaha VOA Hargeysa